kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena Bilan Radio ku soo dhawaada wararka maanta aan idin haynana waxa kamid ah nisa oo ka soo jawaabtay dalabkii xukuumadda ee la xiriirtay kiiskii Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur madaxweynayaasha maamulka Galmudug iyo Hirshabeelle oo waan ka dhax bilaabay khilaafka Rooble iyo sidoo kale Farmaajo Mareykanka iyo Kenya oo ka wada hadlay khilaafka Farmaajo iyo Rooble iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan koox la sheegay in ay Muqdisho si dhuumaaleysi ah ku soo galiyaan qaadka Kenya oo horey loo mamnuucay intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka maanta aan idin hayno waa Arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay 29 bisha 12 sanada 2021 waxaan ku bilaabeynaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa ay ka soo jawaabtay dalabkii xukuumadda ee xaaladda Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa saacado gudood waxa uu kaga soo jawaabay warbixintii shalay ee dalabka wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ee ku saabsanayd xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur warqad qoraal ah oo ka soo baxday xafiiska kusimaha taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Yaasiin Farey ayaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad ee Mukhtaar Roobow ay wanaagsan tahay isla markaana uu leeyahay dhaqaatiir si joogto ah ula socota xaaladiisa caafimaad sidoo kalena uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka labaad ee master degree xiriir joogto ahna uu la leeyahay macallimiintiisa Mukhtaar Roobow noloshiisa waxaa bil walba NISA uga baxda $7,000 Mareykanka ah si loo maareeyo noloshiisa iyo midka qoyskiisa maadaama uu xubin ka noqday Al-Shabaab isla markaana uu soo buuxiyay shuruudaha isu soo dhiibitaanka uuna waajib ka saaran yahay amnigiisa ayaa lagu yiri qoraalka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka lama oga in wasaaradda amniga iyo gudaha Soomaaliya ay ku qanci doonto jawaabta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana Mukhtaar Roobow la soo xiray sanadkii 2018 isaga oo laga soo xiray magaalada Muqdisho xilli uu kamid ahaa musharaxiinta madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynayaasha maamulka Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle ayaa waxa ay waan ka dhax bilaabeen khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale Cali Guudlaawe Xuseen ayaa shalay garankii dambe waxa ay gaareen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo oo warar la helayo ay sheegayaan in durba ay bilaabeen waan ay ku doonayaan in ay ku dhameeyaan xiisada u dhaxaysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo maalmihii ugu dambeeyay ahayd mid cirka isku sii shareereysay waantan ayaa la doonayaa in lagu soo dhameeyo khilaafkan oo ku dhawaaday in gacanka hadal uu ka dhasho isla markaana ciidamada ay kala galaan difaacyo madaxweynayaasha maamulka Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa dadaalo ugu jira sidii wax walba loogu dhameyn lahaa wada hadal isla markaana looga baaqsan lahaa dagaal ka dhaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kuna daata dhiigga shacabka iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen iyo sidoo kale Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaana dadaaladan waxa ay ku doonayaan inay ku soo dhameeyaan xiisadan oo ay doonayaan in la isku soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo maalmihii ugu dambeeyay warar qoraal ah oo xasaasi ah isku marsiinayay baraha bulshada ay ku leeyihiin sida xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale kan Villa Soomaaliya Mareykanka iyo Kenya ayaa waxa ay ka wada hadleen khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka wada hadlay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Ethiopia iyo khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka jira dalka Soomaaliya qoraal oo bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayuu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda dalka Ethiopia ee si xoogeysanaya si xal looga gaaro colaadaha sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in madaxda Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gabagabeeyaan doorashada
iyo in ay isxakameeyaan si uusan u sii dheeraan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhankiisa siiyay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka warbixin uu ku cadeynayay sida ay muhiim u tahay in xal laga gaaro dhibaatooyinka ka jira dalalka ay dariska yihiin ee Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa waxaa ka socda isha ku wada haya dalalka caalamka ee taageerada siiya iyaga oo ku baaqaya in xal laga gaaro khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan koox ay sheegeen in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ku soo geliyaan si dhuumaaleysi ah qaadka dalka Kenya oo horey dawladda Soomaaliya ay u mamnuucday. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo dawladnimada isla markaana laga baaqsado wax kasta oo carqalad ku keeni kara isla markaana loo hoggaansamo awaamiirta dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in ay muhiim tahay in la dhaqan geliyo amar walba oo ka soo baxa dawladda Soomaaliya oo mamnuucday jaadka laga keenay dalka Kenya ayuu sheegay in si dhuumaaleysi ah lagu soo geliyo magaalada Muqdisho taasna maamulka gobolka Banaadir marnaba aysan aqbali karin oo ay suuragal ahayn. cid walba oo lagu soo qabtana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish. jaadka kontrabanka Kenya ka yimaada oo doomaha ku yimaada oo dawladdu ay mamnuucday wadajir gudaheeda lagu gadaa markaas lagu qaybiyaa magaalada fasaad halkaan badda laga soo dejiyo halkaan lagu qaybiyo magaalada loo iib geeyo wax qarsoona ma magaalada haddaad xeeb leedihiin wadajir kaliya xeeb ma laha haddaad suuq leedihiin wadajir kaliya suuq ma laha haddii kuwa qaadka cunaha idinku jiraan adiga kaliya ma cundiin adiga xumaanta maxaa idin gaar yeelay arrintaas marka waxyaabaha lala dagaalamayo ay ka mid tahay inaa ogaatiin waay waa wax kontrabana waa waxaan dawladda ogolayn kontrabaan lala dhuumayo la arki jiray kontrabaan barqadi la gadaayo aniga weligay ma arki adiga aad ku arki waxaa idin sheegaa marka arrintaas in laga waantoobo oo aan degmada lagu gadin ayaa la rabaa. hay-adaha amniga ee shaqada ku leh waa joogaan hadda haddii kontrabaan halkaa lagu gado adinkaa gadaaya adinkaa raalli ka ah maamulku waa imaqlaa haddii halkaan lagu gado iyadoon qarsoonayn haddii lagu gadaayo adinkaa raalli ka ah markii inuu cadiyaa raba. waxaan idin sheegayaa Soomaalidu waxay tidhaahdaa dawladii dul la xagtay leedahay weji la xagta ma leh. haddii aan sidaas ognahay adinkuna aad rabtiin inay sii socoto macnaheeda wax waa wejiga ka xaganaa soo ma yaa maxaa samay kartaa waay marka maxaa samay kartaa qofkii dawladda dhaha wixii uu dawladda isaga celi lahaa ha diyaarsado. hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa uu ka jeediyay kulan looga hadlayay amniga kaas oo lagu qabtay degmada wadajir ee gobolka Banaadir. sidoo kale gudoomiyaha ayaa soo hadal qaaday amni darro uu sheegay in ay ka jirto degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir taas oo aysan suuragal ahayn in ay aqbalaan maamulka uu gudoomiyaha ka yahay ee gobolka Banaadir. waxa uu sheegay sidoo kale in ay tallaabo ka qaadi doonaan cid walba oo isku daydo inay carqaladeeso amniga caasimadda Muqdisho oo uu sheegay in ay mas'uul ka yihiin. waxaana uu faray ciidamada kala duwan ee ka howlgala gobolka Banaadir in ay tallaabo ka qaadaan cid walba oo ka hor imaanaysa ama khalkhal gelinaysa amniga caasimadda Muqdisho. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebook ee Bilan Radio waa inaga intaas daawada waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka si aad noo dhiirigelisid fadlan muuqaalkeena like saar siina sheegare si asxaab badan uu u gaaro. mahadsanid daawade.